kulanti wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka lug haya oo waji cusub yeeshay xilli halkaas laga soo warinayo khasaare kala duwan meydad iyo sidoo kale dhaawacyo fara badan oo markaasi dhinacyadu ay kala jiiteen waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda rasmiga ah ee ka taagan degmada lug haya iyo deegaanada kale ee ku xeeran xiisada beesha ciise iyo sidoo kale gudub birsi oo cirka isku shareertay iyo Somaliland oo ilaa hadda aan wax wara ka soo saarin dagaalkaas ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii ay tamarkii koowaad ina soo booqatay soo dhawo muuqaalka la igreey sina shargare halkan waa bilan ayuusa haddii aan ku bilowno wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada lug haya waxay sheegayaan in halkaas maalintii saddexaad uu galay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada markaasi kala taabacsan iyo maleeshiyaadka kala markaasi ka kala tirsan beelaha ciise iyo sidoo kale gudub birsi wararka aanu helayno waxay sheegayaan in dagaalkii maanta uu ahaa mid aad u qaraar isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac sida xoguhu markaasi ay tilmaamayaan haddaba si aan wax badan uga ogaano dagaalkan ka socda degmada lug haya iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxaan qadka taleefanka aan ku wareysanay oo markaasi aan kala xiriirnay cabdinuur maxamed deegaanka galbeedka maamulka Somaliland toddobaadyadii la soo dhaafay waxa ka jiray dagaalo culus haba ugu daraato labadii maalin ee ugu dambeysay maanta oo ay taariikhdu tahay 24 Agoosto waxa dagaal culus uu ka dhacay deegaanka Usuli iyo deegaan duleedka ka ah degmada lug haya ee gobolka Awdal halkaas dagaal culus ayaa ku dhexmaray laba maleeshiya beeleed sidoo kale xalay waxa jirtay in war culus uu soo saaray madaxweynaha Somaliland oo la xiriiray in ciidanka maamulka Somaliland ay si degdeg ah u dhaqaajiyaan gaaraan furimaha iyo goobaha ay dagaalku ka socdaan si halkaasi ay u kala dhex galaan labada beelood ee ku dagaalamaysa deegaanadaasi waxa sidoo kale jirta in ciidanka aroortii hore ee saakay ay dhaqaaq xooggan sameeyeen deegaanada duleedka ka degmada lug hayana ay ku wajahan yihiin inkastoo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin deegaan ay gudaha u galeen ciidanka maamulka Somaliland sidoo kale beesha ciise waxa ay cabasho xooggan ka qabtaa dhaqanka iyo sida ay ciidanka maamulka Somaliland wax ku wadaan waxa ay leeyihiin ciidanka maamulka Somaliland waxa ay garab siinayaan beesha Samaroon ama Gadabursi oo ay dagaal culus kula jirto beesha ciise maleeshiyaadka beesha ciise waxa ay leeyihiin annagu ma arki karno ciidan ka socda maamulka Somaliland sababtoo ah dhibaatada waxa nagu hayaba waa iyaga ayaa garab siinaya beesha kale ee Samaroon haddii aynu ka adkaan lahayn haddii aan sameeyno dhaqaaq culus oo beeshaasi aan duulaan ku sameeyno ciidankii Somaliland ayaa inaga hortaagan iyaga ayaa dagaal culus nala gelaya marka waxay leeyihiin beesha ciise maleeshiyaadka ka socda waxaan ayaguna weerar culus ku qaadi doonaa ciidanka maamulka Somaliland ase haatee madaxweyne Ciro fariinta uu u diray ciidanka maamulkaasi waxa suurta gashay in maanta dhaqaaq culus ay sameeyaan ciidanka isla markaana ay aadaan deegaanada galbeedka maamulka Somaliland inkastoo wali aysan gaarin deegaanadaasi marka aynu eegno xaaladda deegaanka Usuli waxa ka taagan xaalad halis ah waxa laga cabsi qabaa in daqiiqad walba uu dagaal ka qarxi karo halkaasi labada maleeshiya beeleed kuwana waxa ay ku sugan yihiin gudaha deegaanka Usuli halka kuwa kalena ay taagan yihiin banaanka ama ay godad dhufaysi ah ka qoteen afaafka hore ee magaalada Usuli waxaana jirta in dhaqdhaqaaqaasi ama halista ka taagan Usuli ay sababtay in dadkii deegaanka ay ka barakacaan aadaanna deegaan ay kaga gambadaan dhawaqa iyo jugta culus iyo rasaasta ay isdhaafsanayaan labada maleeshiya beeleed waxa la arkayaa dadkii shacabka ahaa oo caruurtii kuwa tagarbaha kana cararaya deegaanka Usuli aadayana deegaano kale si ay ugu nabad galaan arinta maxaabiista geeriyootay waxa la sheegayaa laba arin in ay sababtay dadka qaar waxay leeyihiin maxaabiista waxa dilay ciidankii maleeshiyaadka ahaa ee qabsaday ee beelaha ka soo kala jeeday halka kuwa kalena ay leeyihiin qaar waxa jira maxaabiis ah oo dhaawacyo culus qabay dhaawacyadaasi culusna u geeriyooday balse xaqiiqada saxda ah waxay tahay ama dadkuba ay u badan yihiin in aragtida bulshada ay wadaagayaan ay tahay saakay in ciidankii maleeshiyaadka ahaa ee kala qabsaday labada maleeshiya beeleed maxaabiistii ay ku qabsadeen dagaaladaasi in ay sababtay in ay iyaga gacantooda ku dilaan
xaaladuna ay ka sii dartay waxa leeyahay beesha ciise ugaaskooda iyaguna fariin culus ayuu gudbiyey oo ah in xitaa ciddii la arkaa iyadoo xiriir la maamulka Somaliland oo ka tirsan beesha ciise la qaarijiyo sababtuna waxay ku sheegayaan in dhowr jeer aflagaado loo geystay hogaamiyaha guud ama ugaaska guud ee beesha ciise taasina ay sababtay inay sameeyaan beesha ciise isku duubni la xiriirta in gabi ahaanba laga soo horjeesto fariimaha ay dirayaan ciidanka maamulka Somaliland ama wasiirada ama madaxda maamulkaasi ee ku aadan in la joojiyo colaadda ka jirta galbeedka maamulka waa maadsan tahay sida ay dadka ka soo jeeda beesha ciise horay ugu dhawaaqeenba hadalkii ka soo yeeray Cabdalla Sandheere wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Somaliland waxa uu sababay in xiisad culus oo sii abuuro ciidankii maamulka Somaliland sida aan hore u sheegaba dhaqaaq ay sameeyeen maanta balse beesha ciise waxa ay leedahay annagu ma garanayno wax la yiraahdo ciidanka maamulka Somaliland ama gabi ahaanba Somaliland sababtoo ah waxa ay leeyihiin oo mararka qaar ay soo hadal qaadayaan in ay yihiin maamulka madax bannaan oo la yiraahdo maamulka Guban State marka waxa deemaysa in xiisadii horay uga jirtay galbeedka maamulka Somaliland ay isu bedelaysaba in qayb kamida maamulka Somaliland galbeedkeeda uu u go'o isla markaana la baxo maamul cusub oo la yiraahdo Guban State oo la xiriira sidii ay isaga ilaalin lahaayeen ama ugu hortagi lahaayeen dhaqdhaqaaqa ay wadaan maamulka Somaliland ciidamadooda beesha ciise oo ayadu doonaysa in ay noqoto maamul ka madax bannaan maamulka Somaliland marka waxa dareemaysaa in wali xiisadu ay taagan tahay cabsidii ayaa wali jirta fariimaha la gudbinayana waxa ay tilmaamayaan in loo baahan yahay in mar walba laga fikiro nabadda balse fariimaha la gudbinaya waxay noqonayaan kuwa mar walba ka turjumaya in xiisadu ay sii kororto ama ay sii cuslaato dagaaladu sii kordhaan xaaladuna ay isu bedesho mid aan waxba laga qaban karin oo halka ay maanta joogto ka sii dhaqaaqaysa marka taasi waxay cadeynaysaa in fariimaha la gudbinaya sida aan hore u sheegaba ay tahay kuwa aan waxba soo kordhinayn fariinta ka timiday ugaaskana ay tahay mid marka aad eegto habdhaqanka beesha ciise ay ku dhaqmayaan ciddii ka soo horjeesata ugaaska guud ee beeshaasi ama ciddii aflagaado u geysatana ay doonayaan in tallaabo adag laga qaado xiisadaha ka taagan gargaara bari iyo beeyadaadeer iyo sidoo kale usuli ciidanka maamulka Somaliland haddii ay gaaraan waxa ay noqonaysaa inay ka sii darto xiisada ee maaha in ay soo kordhinayso nabad ama in ay dadka dareensiinayso in ay yihiin dadkii lahaa deegaanka sababtoo ah beesha ciise maleeshiyaadkeeda godad ayaa u qodan waxa u samaysan dhufeysyo waxayna sugayaan dad ka socda maleeshiyaad ha noqdaano ama ciidan ka tirsan maamulka Somaliland ha noqdaano dad ka socda dhinaca dhufeyska ugu qoran yahay marka taas waxay sababaysaa marba haddii dhufeyskii la yimaado in rasaas culus halkaasi ka bilaabato ay noqoto in dagaal culus meeshii ka dhaco xiisaduna ay noqoto mid aan waxba laga qaban karin oo ciidanka maamulka Somaliland ay qasab ku noqoto in ay toos ugu biiraan dagaalka lana dagaalamaan maleeshiyaadka beesha ciise